dhanka koonfurta Soomaaliya gaar ahaan deegaanada gobolka Gedo Itoobiya waxa ay ku soo xadgudubtay deegaanada qaar iyada oo ku andacoonaysa Masar ayaa imaanaysa ma jirto saldhig sharci ama sharci caalami ah oo u ogolaanaya Itoobiya waxa ay sameynayso Itoobiya waxa ay jabisay dhammaan xeerarka u yaala Soomaaliya waxay halkan dalkan u joogaan laba mid waa waajibaadka midowga Afrika iyo qaramada midoobay iyo aqbalka Soomaaliya midka kalena waxa uu ahaa heshiis laba geesood ah oo dhaxmaray Soomaaliya iyo Itoobiya cadaawada Soomaaliya iyo Itoobiya waa boqolaal jir laakiin taasi waa la soo afjaray dhawaanahan waxaana bilowday in aan albaabada u furno walaalnimo cusub deris wanaag cusub oo dhaxmara labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya nasiib darro Itoobiya waxa ay ku xadgudubtay kalsoonida heerkaasi ee labadeena dal hadda waxa ay dib u celiyeen dhibaatadeenii qarniyadii hore waxaana ay xoqeen boogihii hore waxa ay dhiijiyeen nabaradii hore